السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada akhyaarta sharafta iyo qiimaha leh. waa markale barnaamij kale oo cusub maanta idinku talagalay. barnaamijka cusub maanta aan idin wado waxa waaye thyroid. thyroid maxaa lagu gartaa, maxaa lagu daweeyaa, maxaa lagaga hortagi karaa, intaas ayaa maanta idin wadaa. waxaan ku bilaabaynaa marka hore thyroid muxuu yahay ama thyroid muxuu yahay. thyroid ama thyroid saa u taqaanid. thyroid waxa waaye wax dhunta gala ama cunaha gala. cunaha ayaa soo barara ama soo weynaada badanaa saas ayaa lagu kasaa qofka inuu thyroid leeyahay. cunaha oo soo weynaada ama soo barara iyo calaamadaha ugu horeeya horta thyroidku waa laba nooc. midna waxaa la dhahaa overactive, midna waxaa la dhahaa underactive. overactive-ka iyo underactive-ka badanaa calaamadahooda waa isku mid. qofka overactive-ka qaba waxaa lagu garan karaa indhaha ayaa maaragtay la moodaa inay banaanka usoo socdaan oo kale, in indhaha gadaal laga soo riixay oo kale. indhihii ayaa waxay noqonayaan inay banaanka usoo socdaan oo soo baxayaan ayaa la moodaa. kaas waa overactive. overactive macnihiisu wuxuu yahay aada ayuu u shaqeynayaa. thyroid hormone, thyroid waa hormone, marka thyroid hormonekii ayaa aada u shaqeynaya. kaas waa overactive. underactive-kana waxaa la dhahaa kan aan shaqeynin, oon si fiican u shaqeynin, hormoonkii sidii la rabay uma shaqeynayo ayaa la dhahaa underactive. marka labadaas nooc ayaa jira. labada nooc ee thyroidka waa calaamadahooda badanaa waa isku mid, laakiin wax yar ayay ku kala duwan yihiin. sida hadda overactive-ka oo kale oo indhaha in gadaal laga soo riixo la moodo, kaas waa kan aadka u shaqeeya. badanaa waxyaabaha iskugu midka ay ka yihiin waa bararkaas aan idin sheegay oo cunaha soo barara. qofka dhidid badan wuu dhididayaa qofka. qofka underka ama thyroidkiisa uu underactive yahay ama aan aadka u shaqeynin, wuxuu leeyahay kuleyl fara badan. qofka kuleyl uma adkeysan karo, markasta wuu karkarayaa, gacmaha ayaa karkarayaa. timaha daadashadan labadaba way leeyihiin, timaha oo qofka ka daata. overactive-ka badanaa waxa kan aadka u shaqeeya waxaa lagu gartaa labadabana isku mid ay kaga yihiin. qofka oo welwel fara badan dareemaya, qofka wuu welwelayaa, welwel nervous markasta. nervous waa nerva, dadka soomaalida badanaa waxaan dhahnaa qofkan waa nervous markasta, nervihiisa kacsan. moodkiisa oo isbedelaa qofka, mar uu iska faraxsan yahay, marna waa qof iska niyad jabsan. qofka uu niyad jab badan ayuu leeyahay. qofka wuxuu leeyahay hurdo la-aan, hurdadaa ku yaraanayso. waxaa kale oo qofka lagu arki karaa daal fara badan, qofkii wuu daalan yahay 24 saac. xataa waxaa laga yaabaa shuban inuu leeyahay, qofka wuu shubmayaa mar walba. kaadi badan, qofka musqusha kuna noqonaya. qofka oon badan uu leeyahay, haraad badan uu leeyahay, biyo markasta inuu biyo cabuu jecel yahay, afkaa qalalaya. underactive-kana calaamadaha ugu badan ee lagu kaso waa qofka xoogaa waa opposite. marka oona underactive-ka uu yahay oona si fiican u shaqeynayn waxaa lagu gartaa qabow. qofka qabow ma adkeysan karo. qofkii qabow markasta qabowbu dareemayaa, qabowga uma adkeysan karo. cayil fara badan uu leeyahay, wuu cayilayaa, qofku iska cayilayaa. xataa haddii wax raashin zaa-id u cunin qofku wuu cayilayaa, cayil badan uu leeyahay. saxrada way ku adkaataa, saxrada oo ku adkaata sidii kii hore oo kale. niyad jab fara badan, xubnaha xanuunaya, jirka oo dhanaa xanuunaya. wejiga ayaa barara qofka. wejiga qoortana way barartaa, mar walba qoorta way soo barartaa. wejiga xataa wuu barara qofka underactive-ka ah ama hormoonkaas aan aada u shaqeynin, wejigiisa wuu bararaa. waxaas bedela codkiisa. qofka thyroidkiisa aan si fiican u shaqeynin, codkiisa isbedela. sidii qof cod maaragtay codkiisa weynaada, ama sida codka nimanku yeelanaya, ama cod oo maaragtay hoarse voice ay dhahaan, hoarse voice. codka qofka oo isbedela. dhiig yari oo qofka ku dhacda, anemia, dhiig yari oo meel ay ka timid aan la aqoonin ayaa iskaga dhacda. hataa sometimes waxaa laga yaabaa qofka underactive qaba dhagoole inuu iska noqdo, inuu maaragtay wax si fiican u maqli waayo, dhigihiisa si fiican wax uma maqlayaan. marka maxaa dawadiisa ah? thyroidka horta dawadiisa dawuu leeyahay. waa qofka marka hore mar walba dhakhtarkaaga la xiriir. haddii aad isku aragto inay qoortaadu ay saas oo kale usoo barartay ama indhahaaga ay banaanka usoo socdaan oo kale,
dhakhtarkaaga la xiriir mar walba. Dhiig gooni ah ayaa jira oo qofka laga qaado oo laga test gareeyo thyroidka labada qaybood ama overactive-ka ama underactive-ka laga test gareeyo, kan aadka u shaqeeya iyo kanaan maaragtay shaqeynin. marka haddii lagugu ogaado inaad thyroidkii aad leedahay, dawo ayaa jirta. hormoonka marka thyroidka la dhaho oo aadka u shaqeeya, dawo yareysa ayaa jirta oo shaqadii zaa'idka uu qabanayay oo yareynaysa. kan aan shaqeynina dawo ayaa jirta oo maaragtay shaqaysiinaysa oo hormoonka ka shaqaysiinaysa. qaarkoodna thyroidka qaarkiisna haddii shaqada completely uu joojiyo waaba la qalaa, qofka waa laga qalaa, waa laga soo bixiyaa haddii shaqada uu joojiyo. laakiin haddii uu under uu yahay oo xoogaa shaqeynayo, dawo leeyahay oo maaragtay caawisa inuu hormoonkan shaqeeyo. haddii uu over uu yahayna dawo jirta oo lagu yareeyo. marka dawo ayuu leeyahay, laakiin waa in lagugu ogaado horta blood test laga qaadaa, dhiigaaga la fiiriyaa. marka lagu ogaado dawo ayuu leeyahay, soo mar walba dhakhtarkaaga la xiriir. laakiin maxaa kale oo kaga digtoonaan kartaa waxyaabo aad maaragtay aad samayn karto? waxaa kamid ah adoo healthy food mar walba. horta qofka baniaadanka waxaa fiican inuu cunto fiican cuno, sokorta iska yareeyo, waxyaabaha maaragtay exercise badan uu sameeyo. marka kan oo underactive-ka badanaa waxaa la dhahaa, waxa la yidhahdo iodine waxa la dhahaa jira oo Soomaali iodine la dhahaa malena. iodine-kaasaa jira. marka cusbo waxaa jirta oo iodine lagu daray. cusbada iodine lagu daray ayaa maaragtay isticmaali kartaa oo cuntada ku cuni kartaa, sida cuntada ku karsan kartaa. cusbadaas iodine-ka leh mid waxaa jirta iodine ku jirta cusbooyinka. kolley dhakhtarkaaga wuu ogaanaya, dhakhtarkaaga ku sheegaya. laakiin way jirtaa iodine oo cusbo ku jirta oo dukaamada taalaa jirta. taas wax waa ku karsan kartaa, way ku caawinaysaa. iyo waxaa kaloo aad samayn kartaa soybean waxa la dhaho. waxaa jira soybean, waad aragtay caanada soy milk waxa la dhahaa jira. caanada soy milk la dhahaa iyo soybean, cuntada soybeanka la dhahana aaday u fiican tahay kan underactive-ka ah. waxaa kaloo isticmaali kartaa cabbage-ka, kale-ka, broccoli kan la dhaho. adi qudaartan oo cagaaran oo dhan aad bay u fiican tahay. overactive-kana kan aadka u shaqeeyana, cusbada iodine-ka waa inaad iska yareysaa. kaas waa opposite. waxyaabaha kan active-ka ah u roon iyo kan underactive-ka ah way kala duwan yihiin. marka kan underactive-ka ah oo overactive-ka aadka u shaqeeya, cusbada iodine-ka aad bay ugu daran tahay. soo cusbada iodine ku jirta ama iodine ku jirta iska yarey. waxa u fiican fruits badan, lows badan. lowska nooc kastoo lows way u fiican tahay. ukunta way u fiican tahay, especially ukunta qaybta cad ayaa u fiican. ta kale iodine ku jirta. ukunta qaybta jaalaha iodine ku jirta. marka ukunta qaybta cad kaliya ayaad ka cuni kartaa haddii oo thyroidkaaga uu kii aadka u shaqeynayo uu yahay. qaybta cad cun. adigu waxyaabaha caafimaadka badan qofka baniaadanka horta marka hore waxa fiican daawada intaan la garin inaan maaragtay aad caafimaadkaaga ku dadaasho. waxyaabaha maaragtay oo unhealthy foodka ah sida cuntada la shiilay, saliidda lagu shiilay iyo waxyaabaha badan ee banaanka lagu gato, biscuitka iyo cake iyo waxa banaanka laga sameeyay. xataa cake iyo biscuitka kan guryaha lagu sameeyaa la qaatay oo in yar hadaad ka cunto is okay. laakiin badanaa sonkor number 1 waxa wanaagsan in la iska joojiyo ama la iska yareeyo. in maaragtay caafimaadka lagu dadaalo oo la iska ilaaliyo. insha Allah intaas ayaan idin qaybsanayaa. aad iyo aad mahadsantihiin. insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.